السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي دمان ومد الصوماليات maanta waxaynu ka hadli doonaa wax liidada taabuu. Inta aad u malaynayso way ka khatar badan tahay, waa mid ka mid ah khatartii ugu weyneed ee soo wajahda dhalinyarteena khaasatan ardaydeena. Markii hore daroogadu waxay ku ekayd kaliya dadka qaar, laakiin middan waxay dhibaato weyn ku haysaa ardaydeena iyo dhammaan bulshada. Haddaba waqti xaadirka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya isticmaalka waxay dhalinyaradu u yaqaanaan taabuu, taas oo halis caafimaad ku leh dadka isticmaalaya. waxaa lagu iibiyaa iskuulada hortooda, waxaa isticmaala ardayda oo loo sheegay inay farxayaan oo walwalka imtixaanka daynayo. waxaa isticmaala inta badan dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba. taabuu ayaa u wada saaran yaryar iyo weyn. markaad tiraahdo war waa maxay waxaan cankiina ka buuxa, waxay si dhibar kuugu leeyihiin waa shukulaato lagu cayilo. Smokeless tobacco waa eray bixin caalami ah, taas oo loo adeegsado waxyaabaha la yidhaahdo tubaakada aan qaaca lahayn. haddaba meelaha ugu badan dunida ee laga isticmaalo hot filter qayni taabuu waa dalka Hindiya oo ah waddanka lagu sameeyo hadda. cilmi baaris lagu sameeyay dalka Hindiya ayaa waxay sheegaysaa in 40 sakin walba uu qofku u geeriyo dhibaatada taabuuga awgeed. Soomaaliya shinxadaha jaadka ee dalka la keeno waxaa la socda taabuu ganacsi ahaanna waa loo keenaa dalka waxyaabaha ay ka kooban tahay darteed. haddaba qofka isticmaalo waxa uu halis ugu jiraa inay ku dhacaan cudurradan hoos ku qoran: kansarka ku dhaca afka, kan ku dhaca dhuunta, iyo kan ku dhaca sanbabada. cudurrada ku dhaca wadnaha saameyn uu ku yeesho awoodda dhalmada qofka. dad badan ayaa caalamka dhib u geystay jir ahaan iyo maskaxaan. waxaan ka codsanaa waalidiinta, macallimiinta, ardayda, culummada in ay ka hortagaan khatarta soo wajahday jiilka mustaqbalka. maskaxaan iyo jir ahaan waxay naafo ka dhigaysaa dhalinyarada mustaqbalka. walaal haddaad isticmaashid iska jooji, haddaadan isticmaalina ka waani walaalkaa dhibaataysan.